الله تعالى وبركاته داوديال كلن وعن halkan waa xarunta dhexe ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho kuna soo dhawaada akhbaraadka ugu door koran warka telefishinka gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa soo xiray bandhig carweedka buugaagta oo sanadkii saddexaad lagu qabtay magaalada Muqdisho wasaaradda ganacsiga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inuu dhaqan galay go'aankii wasaaradda dhawaan ka soo saartay qoondada ka ganacsiga qaadka la keeno Muqdisho iyo gobolada Shabeellooyinka akhbaraadka dibadda warka telefishinka qaranka Soomaaliyeed aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Kuuriyada Waqooyi oo gantaal kale dul marisay dalka Japan gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa dhiirigeliyay aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo dhalinyaradii qoray buugaagta lagu soo bandhigay carwada marka waxaan idinka bariyaa idinkala dardaarmayaa walaalayaalo xeendabkan qabiilka ah meel iska dhiga qabiilku wax ma dhibaayo qabiilaysiga wasakha marka qabiilaysiga haddaadan ka bixin xeendabkaas aad ku xirnaanaysaan waa islaynaysaan waa isdilaysaan sidaan ay hayso Soomaaliya ma hagaagayso qofka Soomaaliga riyada aan qabno dad badan ayaa jira markii hadda aan soo maray daara burburan arka daara burbursan waa meel aan ku socon jirnay seeshadii qaado meesha rabta ka dhac waxa tabta samee ilaa aakhir xor aan uga shaqeynaa dalkan magaaladan waxay magaalada ugu nadiifsan Afrika ah Soomaaliya gaartay annaka daadeena markii aan aragno xamaro sidaana ama baydhabo aan la aadi karin ama Hargeysa aan tagi karin inta aan ka bixi karin adigoo aan 10 askari ku daba soconin walaalayaal taas anaka aad iyo aad bay noo dhibaysaa idinka caadi aad u arkaysaan laakiin waa dhibaato aan ka xorowno aan ka midowno aan u jeesano Soomaali sideebay Soomaali u noqotaa sideebaa dhalinyarada oo jiilkan soo socda ay Soomaali u noqdaan oo ay mid u noqdaan oo dalkooda ay u hantiyaan annaka waxaan rabnaa usciida u dhibnaa rabnaa macallimiinta waxbarashada dugsiyada dhigayna walaalayaal waxa idinka barayaa ardayga hadda la siinina asagoo aan baranin ku dadaal in cilmiga siisaan shahaadada dugsiga waa inaysan noqonin laaluush qaar baa leeyahay jaamacaday ka soo baxeen waa yaabanahay markay qoraan fartooda lama akhrin karo hada ma yasir hallo xagar baxo jeesada aad hayso qalinka aad hayso raadiga aad hayso kan oo ka hadlayo ka website wax ku qorqoray kulligood waa amaano آخر ولا ذي حسابته wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inuu dhaqan galay go'aankii wasaaradda dhawaan ay ka soo saartay qoondada ka ganacsiga qaadka la keeno Muqdisho iyo gobolada Shabeellooyinka Cali Cabduqaadir Cali Meykal ayaa warkan si aan baqaadaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Diiriye Khaliif oo yuhuliyaan xogayaha joogtada ee wasaaraddaasi Abuukar Maxamed Daahiye iyo agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdullaahi Xayir Ducaale ayaa la kulmay ganacsatada qaadka ka soo degsata garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho xilli maanta kormeer halkaas ay ku tageen si ay u hubiyaan dhaqangalka go'aano wasaaraddu ay soo saartay ujeedkoodu ahaa xalka gaarista muranaya isbarbaryac ka taagnaa arrimaha ka ganacsiga qaadka sida ay sheegeen mas'uuliyiinta wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Diiriye Khaliif wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa warbaahinta qaranka uga warramay go'aankaasi dhaqangalkiisa maanta waxaan halkan ku imaanay kormeer aan ugu howlgalaynay waxaan maanta halkan ku imaanay kormeer aan ugu howlgalaynay dibreeto ay soo saartay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayna og yihiin wasaaradaha gaadiidka iyo dawladda hawada sare iyo wasaaradda maaliyadda iyo hay'adda ciidanka booliska qaybta cashuuraadka iyo hay'adda duulimaadyada taasoo ku saabsaneed inaan wax ka bedelnay qaabkii hore jaadku ku imaan jiray annagoo go'aansanay in magaalada Muqdisho iyo labada shabeellaha dhexe shabeellada hoose ay yimaadaan 14 oo dhar markaas maanta uu dhaqan galayay waxaan rajaynaynaa inuu dhaqan galay kadib control aan ku sameynay waana mahadsanyihiin ganacsatadii Soomaaliyeed amarkeenii qaadatay waxaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada jaadka u sheegno in wixii maanta ka dambeeya amarkan uu dhaqan galay aan rajaynaynaa inay sida ay maanta u qaateen ay u qaataan dabcan dadkii qaadan waa inay hay'adaha shaqada leh hay'adaha howlahaas ku shaqada leh u gudbinaynaa diyaaradii jaadka ee Jowhar imaan jirtay waa la joojiyay shabeellaha dhexe
waxay ku soo wareegtay magaalada muqdisho ganacsatadan ayagana aad baan ugu mahadcelinaynaa hawshaas nala qabtay intaasaa ugu waaweynaa qodobada aan ka hadlaynay guud ahaan waa 14 oo dhar oo diyaarado kala duwan ay keenayaan magaalada muqdisho aad iyo labada shabeelle wasiir ku-xigeenka ayaa sidoo kale waxa uu xuseen diyaaradii qaadka geyn jirtay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe la joojiyay isla mar ahaantaana Muqdisho loo soo weeciyay isagoo xusay in wada tashiyo la yeeshay ganacsatada qaadka kadib la isku waafaqeen go'aanadaasi la qaato waxaana ugu baaqay ganacsatada qaadka inay dhaqangeliyaan go'aanka wasaaradda ka soo baxay ciddii ka hortimaadana sharciga lala tiigsan doono madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegay in madaxda isku tagga Imaaraadka Carabta uu kala soo hadlay sidii ay gacan uga geysan lahaayeen horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha maxamed muuse tarsan ayaa warkan inoo soo diray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland maxamed cali gaas ayaa soo gaaray magaalada Boosaaso kadib gudashada waajibaadka xajka oo ugu maqnaa dhulka barakeysan ee Sacuudiga waxaana uu ka hadlay socdaalkiisa isu tagga Imaaraadka Carabta oo uu tegay arrimo la xiriira horumarinta Puntland gaar ahaan kor u qaadida tayada kaabayaasha dhaqaalaha oo ah hadafka koobaad ee xukuumadda madaxweyne Cabduuli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabduuli Maxamed Cali Gaas oo garoonka diyaaradaha Boosaaso warfidiyeenka kula hadlay ayaa ka warbixiyay safarkiisii Sacuudiga ee gudashada waajibaadka xajka oo ah mid ka mid ah tiirarka islaamka waa ku faraxsanahay inaan ku soo laabano dalkii oo degan oo amni ah sala socotaan muddo 3 usbuuc ka badan waxaan jiray dalka Saudi Arabia iyo dhowr bari waan joogay dalka Imaaraadka soo socodkayga aan soo maray dalka Saudi Arabia waxaan u tagnay waxay ahayd gudashadii xajka waajibaadka go'ashada xajka si fiican baan runtii noogu soo dhamaatay dalkana uu soo ducayn ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu anaga naga aqbalo xajka wixii ducaahan dalka iyo dadka aan u soo niro iyana uu naga aqbalo waan rajeynayaa insha Allah war kale hadee war xajun baan wada wax kale aan wadahay ma jiraan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabduuli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inay wax uga soo qabsoomeen kulamo uu la qaatay madaxda Imaaraadka Carabta kuwaasi oo looga hadlay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha maamulka Puntland ka bacdina waxaan soo maray dalka isku tagga Imaaraadka Carabta oo hawlo yar oo la xiriiray horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha aan u soo maray alxamdulillah ina sida hawlahaas si wanaagsan bay noogu soo dhamaadeen dalkii oo amniga wanaagsan oo ku soo laabanay insha Allah waxaan rajeynaynaa ilaahay baryeynaa inuu midnabadeena iyo amnigeena uu noo xoojiyo wixii hadaa hawlo taagan insha Allah aan degdeg u guda galno horumarka aan noo socday iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhismaha dawladnimadana aan ku faraadagna hadii Ilaahay yiraahdo dowlad goboleedka Puntland ayaa xiriir wanaagsan la leeyahay tagga Imaaraadka Carabta kuwaasi oo mashaariic horumarineed ka wada gudaha Puntland maalmaha soo socda ayaana la filayaa in la daafuro ballaarinta dekedda magaalada Boosaaso oo shirkado Imaaraadka laga leeyahay horey loogu wareejiyay maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka Boosaaso tababar ku saabsan sida looga faa'iideysan karo batroolka Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi iyadoo ay ka qayb galeen saraakiil ka socotay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka Umar Cabdi Xasan Umar Caaqil ayaa warkan Nairobi nooga soo diray tababarkan oo socday muddo 5 maalin ah ayaa waxa looga hadlayay qaabka looga faa'iideysan karo batroolka dalka waxaana ka soo qayb galay 16 xubnood oo ka kala socda dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka iyadoo uu soo qaban qaabiyay Bangiga Afrika qaar ka mid ah saraakiisha wasaaradaha maamul goboleedyada dalka oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka mahadceliyay tababarka ay qaateen iyagoo sheegay in wax badan ay ka faa'iideysteen macna leh oo muddo 5 cishaan noo socday oo ay wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya ay soo qaban qaabisay ayna ku caawisay hay'adda Afrika ka socota Bangiga Afrika oo la yiraahdo ALSF waxay u ahaa shir wanaagsan waxa waliba intan inka bilowday muddo ku roogay Shamber workshop oo ku saabsan oo ha abaabuli wasaaradda batroolka iyo gaaska iyo macdanta dawladda federaalka oo inaska kooyeen dadku socdo maamul goboleedyo
workshopkan wali ku saabsanaayahan qaabka lan la gorgortamaw shirkado daneeyaan shidaalka Soomaali iyo gaaska iyo mineralka ku saaradan fadaayaan eeda fruitful and high walbadan ku barani meeshaan waxaan ku qabanay training looga hadlayo financial modeling-ka petroleum-ka wadanka annaga iyo dawladda federaalka iyo dadkii member of states oo waa isu nimaanay training aad u fiican oo anfacaya mustaqbalka dadka Soomaalida ah yaa meeshaan lagu qabtay aad baan waxaan ugu faraxsanahay wada shaqaynta wasaaradda petroleum-ka iyo isteediyada qaabka wada shaqaynayaan iyo sida loo kobcin wasiir ku-xigeenka wasaaradda badaroolka iyo macdanta ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal oo tababarka soo xiray ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ay u qabteen ay tahay sidii ay aqoon kororsi ugu sameyn lahaayeen wasaaradda macdanta iyo badaroolka la iskuna xiro dawladda dhexe iyo dawladda goboleedyada dalka oo dhan bacdama aan meel marinay oo golaha wasiirada ay meel mariyeen sharcigii batroolka waxaa muhiim ah oo aadayana mid kale golaha shacabka baarlamaanka uu aadayo oo aan filayna inay dhawaan meel mariyaan waxaa muhiim noqotay ayadoo laga duulayo in laga faa'iideysto khayraadka wadanka waxaa muhiim noqotay in la kobciyo aqoonta shaqaalaha joogo gaar ahaan wada xaajoodka lala yeelanayo shirkadaha aljaanibta kuwii horey u lahaa qandaraasyada hore loola galay iyo kuwa hadda cusub la siinayaba Umar Abdi Hassan Umar Aqil SNTV Nairobi wadamada xubnaha ka ah hay'adda dalxiiska adduunka ayaa soo dhaweeyay kamid noqoshada Soomaaliya ay kamid noqotay hay'adda dalxiiska adduunka Cabdinaasir Daahir Sabriye ayaa faafahinta warkan inoo haya shirka hay'adda dalxiiska dunida oo ka dhacay magaalada Jinkordhu ee dalka Shiinaha ayaa sanadkan laga arinsaday arrimaha dalxiiska caalamka iyo sidoo horumarin loo sameyn lahaa shirkan oo labadii sano mar la qabto ayaa waxa guul weyn oo taariikhi ah ka soo hooyay Soomaaliya oo si rasmi ah ugu mid noqotay 159 dal ee hay'adda dalxiiska dunida ku midaysan guushan ee Soomaaliya gaartay waxa ka shaqeeyay wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska Soomaaliya oo si xeeladaysan ugu shaqeysay arrintan kana gaday caalamka in Soomaaliya ay diyaar u tahay iskaashiga dalxiiska kuna wanaagsan tahay dalxiiska horaantii bishii Juun sanadan wasiirka warfaafinta dhaqanka dalxiiska Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yurisow ayaa booqday xarunta dalxiiska dunida ee ku taala magaalada Madrid ee dalka Spain isagoo ku qanciyay mas'uuliyiinta hay'adda dalxiiska in fursadda Soomaaliya u baahan tahay la siiyo isla markaana ay ku soo bandhigaan qaraadka dhinaca dhulka badda iyo soo kale magaalooyinka Soomaaliya ee haysto kuwaas ay ugu horeeyaan dalal badan oo caalamka ku yaala Soomaaliya ayaa buuxisay dhammaan shuruudihii looga baahnaa kuwaas oo looga dooday shirka intuu socday iyadoo difaacin mas'uuliyiinta ka socota wasaaradda warfaafinta uu kamid yahay la taliyaha dhanka dalxiiska Yaasiin Maxmed Baafo kadib Soomaaliya ayaa heshay codad aqlabiyad leh iyadoo noqotay wadanka 159 ee ku biiray hay'addan waxaana uu horeeyay hay'addan wadamada Cameroon iyo wadamada Carabta ah iyo Afrika qaarkood halka Falastiin ay soo buuxin weysay shuruudihii dalxiisnimo qorshahan ayaa kamid ah barnaamijka nabad iyo nolol ee xukuumadda ka oo ka turjumaya in dalxiisku uu qayb weyn ka qaadanayo kaabayaasha iyo soo kale kobaca dhaqaale ee dalka oo dhan Yaasiin Maxmed Baafo la taliyaha dhanka dalxiiska wasaaradda warfaafinta ayaa khudbadu halkaasi ka jeeday shirka caalamka wuxuu uu sheegay in Soomaaliya ay ka soo qabatay burburkii iyo dagaaladii sokeeye una badashay horumar iyo mudnimo taasi oo ku tilmaamay in fursad buuxda ay u siinayso Soomaaliya in la soo dalxiisto xilligan Soomaaliduna wadamo badan oo caalamka ay kaga horeeyaan martigelinta iyo soo dhaweynta Yaasiin ayaa khudbadu halkaasi ka jeediyay waxa uu yiri haddaba iyo ogolaada inay xasuusiyo Soomaalida dhabta ee 1991 ka hor Soomaaliya waxay ahayd mid kamid ah wadamada Afrika ugu awoodda weyn dawlad wanaaga dal nadiif ah iyo doog nabad ah dalkeena Soomaaliya xilliga dunida ayaa lagu imaan jiray sida ay ahaataba Soomaaliya dalxiiskeedii ma guurin wali qaraadkii waa inoo sidiisii dadkuna way ku dalxiisaan si raaxa iyo ixtiraam leh wahagaag daawadayaal wali waxa la socotaan warka telefishinka qaranka Soomaaliyeed imikana ku soo dhawaada aadaanka salaada cisho ee xilliga magaalada Muqdisho أشهد أن لا إله إلا الله
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. آمين آمين آمين. halka aan ku dhaafno aadaanka salaada cisho ee xilliga magaalada Muqdisho imikana waxaan sii guda galaynaa qodobada inooga harsan warka. dhaqaatiir Soomaaliyeed ayaa baaritaan caafimaad oo lacag la'aan ah u sameeyay maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee Xamar. Cali Cabdiraxmaan Aadan ayaa warkan inoo haya. howlwadeennadan caafimaad ayaa ka socday cusbitaalka Yaardameeli ee magaalada Muqdisho waxayna baaritaan caafimaad indhaha oo bilaasha u sameeyeen qaar ka mid ah maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe iyo askarta ciidanka asluubta. agaasimaha waaxda xiriirka bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Maryan Aadan Axmed oo ka mid ahayd mas'uuliyiintii howlwadeennadan caafimaad geeyay xabsiga dhexe ayaa warbaahinta qaranka ugu warantay hawshan baaxadda weyn la waxa isku soo dabariday gabadhan Aamino oo noogu socota ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed qaybtiisa tacadiyada daryeelka naafada oo hawsha ay haysaa baaxadeeda halkan ka aragtiin wayna soo ogeysisay ka xafiis ahaan waxaana waajib nagu ah in aan la qabano howl walba oo bulsho qof iyo laba iyo saddex iyo wadar cid qabanayso sidaas darteed halkan u nimid isbitaalkana wuu mahadsan yahay dhalinyaradaas quruxda badan la maanta hawshaas baaxadda weyn u bilaabay toddobaad iyo laba toddobaad waxay noqotay inta maxbuus uu ka sheeganay indhaha uu ku jiro xabsiga inay howl ka fuliyaan ay diyaar u yihiin. howlahan baaritaanka caafimaadka ee bilaashka ah ee maanta laga bilaabay xabsiga dhexe ayaa waxa uu socon doonaa muddo toddobaad kaasoo loogu gol leeyahay in lagu daweeyo dadka qaba xanuunada indhaha ee xabsigaasi ku xiran. taliyaha xabsiga dhexe ee Xamar gaashaanle dhexe Ibraahim Cumar Cismaan ayaa sheegay in xabsiga dhanka caafimaadka ay ka kaalmayso hay'adda caalamiga ee ICRC isla markaana aysan jirin dhaqaatiir u gaar ah oo daweysha xanuunada ku dhaca indhaha ee maxaabiista xabsigaasi ku jirta. dhanka caafimaadka sida badan ama inta badan 90% hay'adda RCRC ama lanqeyrta cas ayaa ka caawinta hadday noqoto xagga daawada xagga qofka markuu nafaqo darro ay ku dhacdo soo celintiisa raashin special ah in la siiyo oo raashin sida mataqaanaa bustoodii waxyaalo saasa tii ay idinkaga warbixiyeen way dhaqaatiirtii markii aad soo aragteen oo meesha isbitaalka joogtay. xabsiga dhexe Xamar ayaa waxaa ku xiran maxaabiis dembiyo kala duwan loo haysto waxaana taliska ciidanka asluubta xil weyn iska saaray sidii loo hagaajin lahaa adeegyada ay heli karaan maxaabiista ayadoo hawshan sidoo kale gacan ka geysteen ururka haweenka qaranka
oo isbitaalka ka codsaday in howlwadeenno caafimaad loo soo diro xabsiga dhexe xamar. cali cabdiraxmaan aadan, SN TV, Muqdisho. gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo wafdi ay hogaaminayso ayaa u ambabaxay dalka Shiinaha, halkaas oo ay kaga qayb galayaan shir looga hadlayo horumarinta haweenka. Cabdirasaaq Maxamed Faarax Shiine ayaa faafahinta warkan inoo haya. wafdigan oo ay hogaaminayso gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ka kooban 5 xubnood ayaa maanta ka dhoofay garoonka Aadan Cadde iyagoo ku sii jeeda magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha, halkaas oo ay uga qayb galayaan shir ay isugu imaanayaan madaxda ururada haweenka ee wadamada ku jira jaamacadda Carabta. shirkan ayaa maalmaha uu socdo waxaa looga hadli doonaa horumarinta siyaasadda haweenka iyo dhaqanka dalalka ku boobay jaamacadda Carabta, sida warbaahinta qaranka ay u sheegtay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuulo Axmed Gaballe. qodobada ugu xoog badan oo shirka lagu qaadaa dhigi doono aan gacanna ka geysan doono talana ku biirsan doono waxa ay yihiin sidii haweenku uga qayb gali lahaayeen horumarinta dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo mataqaanaa dhaqanka oo khaas ahaan isaga muhiim u ah jiritaanka bini'aadanka. ummad waliba waxay leedahay dhaqan ay ku hirato iyo ficlan wax ay kaga duwan tahay dadka intiisa kaleetood oo u baahan in la soo nooleeyo, sida annaga oo kale dhaqamada haweenka Soomaaliyeed ama dhaqanka ummadda Soomaaliyeed ay leedahay waxaa saldhig u ah haweenka Soomaaliyeed. dhaqamadaasi waa burbureen, waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo, in la soo nooleeyo si ay u buuxiyaan kaalintii bannaanaatay oo looga baahnaa. sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ayaa ugu baaqday haweenka Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan mideynta ummadda Soomaaliyeed. haddii aan nahay haweenka Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmaynaa khaas ahaan gabdhaha Soomaaliyeed oo buddhiga u ah bulshada inteeda kaleetood in ay u istaagaan mideynta shacbiga, la shaqaynta dawladda iyo taageeridda qarannimada Soomaaliyeed oo ah mid ummadda Soomaaliyeed ay kaga mid tahay adduunka, difaaceedana uu yahay waajib muqaddasa. waxaan u hambaleynayaa dawladda Soomaaliyeed dadaalka dheeraadka ah, waxqabadka, isku kalsoonida iyo hoggaanka toosan oo ay ku hogaaminayso shacbiga Soomaaliyeed. ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkan waday qaabkii ay u soo celin lahaayeen cilaaqaadkii ay la lahaayeen ururada kale ee haweenka ee ka jira dalalka caalamka. Cabdirasaaq Maxamed Faarax, warbaahinta qaranka, Muqdisho. weli waxaad la socotaan warka telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho. wararkii gudaha ayaa daawateen, markana wararka dibadda. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal kale dul marisay dalka Japan. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in gantaalkani uu sare u kacay masaafo gaaraysa 770 kilomitir uuna jaray 3700 kilomitir ka hor intii uusan ku dhicin badda Hokkaido. Ra'iisul wasaaraha Japan ayaa sheegay in dalkiisu uusan marnaba u dulqaadan doonin ficilada halista ah ee Kuuriyada Waqooyi. haddii Kuuriyada Waqooyi ay sii wado in ay ku sii socoto jidkaas mustaqbalku ma iftiimihayo, ayuu yiri war qoraal uu soo saaray. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale cambaareeyay gantaalka ay riday dowladda Kuuriyada Waqooyi. jawaabtiisu wuxuu culayska ku saaray Shiinaha iyo Ruushka oo ah dalal ay xiriir dhaqaale leeyihiin Kuuriyada Waqooyi oo nuclear-ka haysata. Shiinaha ayaa Kuuriyada Waqooyi ka iibiyay shidaalka ugu badan, Ruushkuna waa dalka ugu badan ee shaqo siiya. Shiinaha ayaa Kuuriyada Waqooyi ka iibiyay shidaalka ugu badan, Ruushkuna waa dalka ugu badan ee shaqo siiya shaqaalaha la qasbay ee Kuuriyada. Shiinaha ayaa Kuuriyada Waqooyi ka iibiyay shidaalka ugu badan, Ruushkuna waa dalka ugu badan ee shaqo siiya shaqaalaha la qasbay ee Kuuriyada Waqooyi u dhashay, ayuu yiri. Shiinaha iyo Ruushka waxaa waajib ku ah in ay muujiyaan in aysan u dulqaadanin gantaalo tijaabinta qar isku tuurnimada ah iyaga oo qaadaya tallaabooyin u gaar ah oo iyaga ka soo go'ay. waa hagaag daawadayaal, waxaa intaa inooga eeg warkii aad ka daawanayseen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. in warka idinkaga imaanayay anigoo